bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Tech News oo ah labaad ugu barateen inay idiin soo gudbiyaan casharo ku saabsan tiknoolajiyadda iyo wararka ugu dambeeya caalamka. Caawa waxaan ku baranaynaa cashar kooban oo ah computer shortcuts sida computerkaada aad u isticmaali karto keyboardkiisa aad uga maarantana muuska. Casharka koowaad aan ku baran doono waxaa ka mid ah keyboardka marka uu saa yahay shortcutyo badan ayuu leeyahay. Shortcutka ugu horeeya aan baranayno waxaa weeye sida computerkaada sawir saarnaa aad screenshot uga qaadi lahayd. Marka hore waxaa qabanaysaa calaamadda windowga, kadib baa print screen taabanaysaa, kadib screenshotka wuu kaaga qaadmayaa. Meesha aad ka helayso markii aad sawirkaa qaadana waxaa weeye qaybta computerka ee pictures ku qoran tahay, qaybta ayaana ka helaysaa. Shortcutka koowaad waa aan ku baranayno waa kaa. Shortcutka labaad ee aan baranayno waxa weeye computerkan ku baranayno sidoo kale sidii aad computerkaaga tusaale ahaan adigoo isticmaalayay baa qof kusoo dul istaagay, kadibna waxaa rabtaa inaad ka baxdo wixii aad isticmaalaysay si uu qofkaasi u arkin. Halkii aad minimize ka taaban lahayd si fudud ayaad waxaa u taabanaysaa calaamadda windowga iyo d baa isla taabanaysaa, kadib wuu ka baxayaa. Tusaale ahaan haddeer haddii aan isticmaalayay halkaan markaan joogo waa haddeer waa google-kii baan ku jiraa. Halkii aan ka oran lahaa xagga calaamadda taaban lahaa minimize oran lahaa calaamadda windowga iyo waxaan isla taabanayaa d window plus d. Casharka saddexaad ama shortcutka saddexaad aan ku baranayna casharkeena waxa weeye sida computerkaada aad u damin lahayd adigoo adeegsanaya keyboardkaada. Tusaale ahaan markii computerka aad daminayso waxaad tagtaa start button, kadib waxaad ku dhufataa calaamadda powerka, kadib shutdown ayaa dhahdaa. Sidaasi si ka sahlan ayaan maanta samaynaynaa ama idinkugu soo gudbinaynaa casharkeena. Tusaale ahaan markaa rabto computerka inaad damiso adoo isticmaalaya keyboardka, calaamadda alta iyo waxaa isla qabanaysaa F4, calaamadda alta iyo F4, kadib waxaa kusoo baxaya shaashadii shutdownka kaaga muuqanaysay ayaa kusoo baxaysa, kadib enter ayaad oranaysaa. computerkaada sidaas ayaa ku damisay. Daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeena. U diyaar garoowa casharada kale ee soo socda. Fadlan waxaan idinka codsanaynaa channelkeena inaad subscribe iyo like iyo share noo samaysaan, gambaleelkana aad furto si video kasta aan soo dhigno uu kuugu soo dhaco. Mahadsanidin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.